News maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa adeeg cusub kaasoo ah runtii adeeg idin tacajabin doono boqolkiiba boqolna aad ka heli doontaan. Marka ugu horeysa channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, kuwa subscribe u saarayna like ha inoo saarano. Horey waxyaabo fara badan ayaynu hormuud ugu soo gudbinay. Maanta waxaan soo gudbin doonaa adeeg cusub. Hadda adeeg muxuu yahay? Intaan adeega aadan ogaanin waxaad qortaa wax meeshaas kugu qoran oo ah xidig 402 afar gees okay ayaad leedahay. Anigu ismakaarka hormuudka ayaan ku dhufsanayaa. Shirkadka haddii aad isticmaalayso digniin waayo waan kaaga digaya inaad adeegan ku tijaabiso maxaa yeelay ma ay isticmaasho. Waxaan u baahanahay adeeg ku yaala lambar 3 oo ah fariin wadaag. Waxaan rabaa in fariin wadaag in aqoonti aan kordhiyo, in waxyaabo markaas laga dooday inaan anigu ka doodo. Waxaan u baahanahay golayaal lambar 1 golayaal group ah private mise golayaal furan oo ah public mise sidiisaba iska xiraa maadaama hadda anigu ii furan yahay. Waxaan leeyahay golayaal private maxaa yeelay public oo wax iska furan qof walba uu soo geli karo. Private group management samee koox yaa samee koox saaxiib koox ayaa sameynaysaa. Markaad kooxda sameyso groupka ayuu ku leeyihiin ama geli groupka magaciisa. Waxaan leeyahay reer diini groupka wuxuu leeyahay waa la abuuray saaxiib. Group name waa reer diini lambar 1 ayaan leeyahay dib ayaan u laabanaa waan ku soo laabanaa hadda marka si bal adeegyada aan idin wadaago. Waxaan leeyahay private dib aan laabanaa. Waxaan leeyahay public marka public waa maxay public maxaan sakin ka faa'iidaa waa kan public waxaa jiro lambar 1 arrimaha bulshada, lambar 2 arrimaha diinta, lambar 3 caafimaadka, 4 tacliinta, 5 aqoon guud. Anigu waxaan leeyahay arrimaha diinta rabaa oo lambar 2 ku taal dhankaas raba inaan iska dhiso. Select ku leeyahay group saaxiib. Join the group ka mid noqo qaybtan lambar 1 ayaan taaban doonaa. Wuxuu saaray ayaan rabaa inaan dhiso wuu isoo celiyay maadaama horey anigu igu furay. Bal adiguna tijaabi bal adiguna ku hagaagda.